aysiga ummadda Soomaaliyeed oo shirkan soo agaasimay runtii waa shir loo baahnaa muhiimna u ah bulshada Soomaaliyeed in la iska xog wareysto kale wixii de siyaasadda waddankan ka jira iyo dadkiina doortay anigu halkan laygama dooran laakiin kale waxaan ahay waan dareemayaa inaan ahay qof kale Soomaalida meel ay joogaan bay Sweden ka joogaan inaan matalo ama ay doortaan ama ay dooranin aan iyaga meesha u joogo marka wax weeyaan kulankaanayto waa kulan loo baahnaa waana kulan aan u arko inay muhiim tahay in meel kasta Soomaalidu ku nooshahay in lagu qabto sidii xogogaan loogu noqdo siyaasadda waddankan waayo anu hadda waa tookadii labaad aan soo galo baarlamaanka runtii 4 sano hore wax weeyaan xisbiga Milyo Party aan ka tirsanahay aniga xukuumadda dalku qayb ka ahaa laakiin hadda waxa weeyaan opposition baan ku jirnaa hadda mucaarad baan ahay marka way ka duwan tahay xildhibaannimadii hore iyo tan waa laba waji bay leedahay run ahaantiina de aniga kaliya isbedelka ay ugu imaan isbedelkaanito dalka Sweden oo dhan ba isbedel ka yimid maanta waxa weeyaan waddanka waxa hogaaminaya xisbi cunsuri ah oo noqday xisbigii labaad yacnaha waddanka taasna waxay idin muujinaysaa in 2 milyan oo qof ka badan u codeysay xisbi si toos ah cunsuri u ah run ahaantiina heshiiska lagu soo dhisay dawladda Tid of Toilet baa la yiraahdaa waxa weeyaan waa heshiis intiisa badan ay Sverige Demokraterna ay ku guuleystaan qodobada marka yacni Ulf Kristersson Soomaaliga waxa lagu dhahaa waa maqaar saar laakiin meesha yimi Åkesson baa ra'iisul wasaare ka aruntii markii dhab ahaan loo fiiriyo marka heshiiskaas markii la fiiriyo waa wax qodobadu ka kooban yahay waa qodobo runtii anaga aad noo saameynaya waliba qodobada ku saabsan migrationkii integrationka run ahaantii migrationka markeeda hore loo cuno qabateeyay laakiin hadda waxa weeyaan waa la sii cuno qabateeyay migrationka si Sweden yacnaha dadka imaan doona ama rajada ay uga jirto inay dalkan yimaadaan aysan u soo hambaasin Sweden oo ay meel kale ay aadaan taasna waxa keenaysa dadka halkan jooga in la cuno qabateeyo oo tusaale looga dhigo kuwa imaan doona inaysan isku soo aadin meeshan marka run ahaantii qodobo fara badan oo yacnaha hadday noqoto dadka sharciyada yaryar haysto kale in la yiraahdo välfärdsrättigheter yacnaha xuquuqda välfärdka xaq uma yeelan doonaan hadda baaritaan baa la sameeyaa in la baaro arintaasayto waxaana kamida garantii bakhunka kamida bombidroga kamida bostadsbidraga kamida waxaan kamida economic bistond waxyaalahaas oo dhan dad badan oo Soomaaliyeed baa jira oo aan lahayn sharciyo waaweyn waxaan sharciyadii permanent upholsterston wala joojinaya in la bixiyo oo sharci ku meel gaar ah la bixinaya kuwa haysta hadeertan permanent upholsterston waxa hadda training la sameeyaa in la eego in iyaga dib looga soo celin karo dhan permanent upholsterston dadkeena baasaboorada waaweyn haysta inaga laftigeena yaynaan oran wax weeyaan nabad baa meesha noo taalo waayo hadeertaanito qodob waxa jira hadda ku qoran heshiiskaas oo ay kamid tahay Eray Vandel la yiraahdo qofkii geysta wax yacnaha Sweden jiritaankeeda ama qaanuunkeeda dhibaya in lagala noqon karo sharciga lana musaafirin karo Richard Jomshof waxa weeyaan waa xildhibaan ka tirsan Sverige Demokraterna haddana ah gudoomiyaha Justitieutskottet waxa weeyaan Justitieutskottet waxa weeyaan waa gudoonka shuruucda waddanka baarlamaanka ayuu gudoomiye u yahay wuxuu ka hadlayay khamaarku tusaale u soo qaatay khamaarku wuxuu yiri waa vandal waxa la oran karaa inuu yacnaha khamaarku uu yacnaha Sweden ahaanshaheeda iyo jiritaankeeda uusan yacnaha waafaqsanayn marka ma ahan arintani arin sahlan run ahaantii marka qof kasta oo Soomaaliyeed mas'uuliyad baa saaran khaasatan annaga dadkeena siyaasiyiinta mas'uuliyad baa saaran in dadka aan wacyi gelino idinkuna inaa wax naga qaadataan run ahaantii waayo haddii de siyaasadii laga raadiyo isbitaalka oo kale oo nin dhakhtar siyaasadda laga xog wareyso jahwareer baa imaanaya dad baa anigu talaan idin siinaya hadda reer Stockholm
matalaad buuxdaad ka haysataan magaalada degmada Stockholm runtii garabka bidix baa hadda xukuma oo taasna waxa weeyaan wax Ilaahay loogu mahadiyo runtii golaha hadda Stockholm Soomaalida fadhida wiliga inta Soomaaliinta tirsile igmay fadhisanin inagu dhaqsaan wax nacnaa Soomaalidana aadna wax u jeclaanaa aadna wax u nacnaa aniga waxaan jeclaan lahaa dadkaas in aad loo shaqeysaan inaad yacnaha u dul qaadataan waayo qofku ma noqonayo moogta hadii qofku waxa inuu barto u baahan yahay qofku markuu meeshan hore u soo fadhiisanin fahankeedii buu baahan yahay in loogu sabro